ma ogtahay in dalka Singapore aanad marnaba ka arkaynin wax qashin ah haddaba su'aasha isla markaaba maskaxdaada ku soo dhacaysa ayaa ah oo hadaa xagee ku quban qashinka adduunyadu waxa ay tartan ugu jirtaa sidii ay magaalo kastaaba u noqon lahayd halka ugu nadaafadda badan caalamka haddaba dadweynaha dalka Singapore ayaa kaydiya qashinka kadibna waxa ay geeyaan dhismahan oo loogu talagalay in lagu kaydiyo laguna gubo qashinka dhismahan ayaa ah warshad haddaba warshadan ayaa maalin kasta toddobaad kasta bil kasta iyo sanad kastaba waxa lagu gubaa qashinka dalka balse arrinka cajiibka ah waxa weeyaan in hiidka ama kulaylka ka yimaada gubitaanka qashinkan loo isticmaalo koronto ahaan si loo iftiimiyo guryaha iyo guud ahaan magaaladaba sidoo kalena warshadan ayaa awood u leh in ay sifayso qiiqa waxyaabaha sunta ah ee ku jira qashinka la gubayo si loo ilaaliyo nadaafadda hawada ay qaadanayaan nooluhu ugu dambayn dambaska ama hadhaaga dabka waxa lagu daadiyaa jasiirad gacan ku samays ah waxaana lagu tuuraa biyo gaar ah oo aan ku biirin biyaha badda habkan ayaa ah qaab cajiib ah oo aan waxyeelo gaarsiinayn deegaanka maxaa yeelay qashinkii waa la ururiyey waa la gubay haddana waxa la sifeeyey qiiqa ka soo baxaya gubitaanka qashinka ugu dambaynna waxa loo isticmaalay koronto ahaan